hay daawadayaal qofka u dambeeya barnaamijka madasha muftiga su-aasha u soo diray waxa uu leeyahay sheekh xaaskayga waxaan kaga maara la'ahay masayr waxay mar walba doonaysaa inay mobilkayga iyo baraha bulshada aan isticmaalo ay la socoto heer ilaa ay doonayso in macluumaadkayga gaarka i ah ay ogaato arrintaa maxaa xal ah oo sheekh lagu xadidi karaa? alxamdulilah arrintaasi waxaan isleeyahay sababku waa laba arrimood. xaaskani gabadhani ninka way jecesha, laba inuu la guursan ay ka baqaysaa. marka naftiibaa waxay ku xambaaraysaa oo ay tusaysaa inay ka hor istaagta guurkay rabtaa. marka inuu dad kale la sheekaysanayo iyo dumar kale sheeka inuu laleeyahay iyay ka baqaysaa. mar waa middaas. midda kale waxaan isleeyahay waxaa sabab saddexaad noqon kara qalad ninkuu galay. qalad ninkuu galay baa qayb ka noqon kara. markii hore la isguursaday buu wax walba firi iyo dhexqaad ka baray, iyo telefoonkiisa dhex qaado, boorsadiisa samnaydka iyo furaheeda ay haysato, emailkiisa ay la akhrisato markii hore baray. markii dambana waa dhici kartaa inuu is ururiyey, sururkaana uu shakiga iyo waswaaska keenay. marka mid waxaan rabaa horta ragga reeraha iyo ragga dhalinyarada ee guursanaya si guud inaan dhaho, marka koobaad ee guursataan gabadha aad guursatay iyo xaaskaaga xuduud baa la kala yeeshaa. adigana telefoonkeeda iyo boorsadeeda gaarka iyo emailkeediya lama baaro, lama yeelo. xataa fiiri haddii lagu yihahdo lama yeelo. kuwaagana looma ogolaado. reer baa tihiin, dhaqanka reerku waa xuduud. xurmaya waxisureeb baa jiraya intaad xuduudda kala leedihiin. macnaheedu maaha ani kayga kuma ogoli kaagana waan baarayaa maaha. may boorsadeeda gabadha ha ka baadhin, telefoonkeedana ha ka baadhin, emailkeeda iyo whatsappkeedana ha baadhin, iyo facebookeeda toona. kuwaagana ha u ogolaan inay baadho. marka horeysa isbarta. rag baa kula socda, dad baa guriga ku imanaya, qof baa telefoon ku wada hadlaysaan. yuu ahaa, maxaad ka wada hadlayseen? adiguna iyada ha ku dhihin, adiguna ha ka ogolaanin. laisma farageliyo, laisma raacraaco, hoos laysuma galo. gabadhii haween baa yimid, haween baa la sheekaysanaya, qof bay telefoon isu direeyeen. waxa iyada kuu sheegta waa gaar, laakiin kan muxuu ahaye, maxaad ka wada hadlayseeniy, maxaa isdhahdeenay, tan yay ahayd iyo waxaas ma wanaagsana. xuduud inaad dadku isbarashadu way fiicanta, lakin waxaa la yihahdaa isbarashadu ma xumee, isdaalacashada xun baa la yihahdaa, ama isdaahirashada xun. mar hoos laysu dhexgalaa xune, in laysbarta ma xuma. saa haddaad barta gabadha hadhow wixii yara isbedelee yimaada, saameyn badan ba nolosha ku yeelan. taasi waa mid. gabadha marka waxaan dhihi lahaa sidaas xal maaha, ragna guur lagagama celiyo. ragga way kasii xanaajisaa, adigana wax badan oodan rabin oo laga yaaba runba inaynan ahayn. rag iyo dumarka sheekooyin badan baa dhexmara. gabadhan rag bay sheeka dhexmari, hada isku tuurtuuri. ninku hadduu maqla wuu ka xumaan, laakiin iyadu intaa tuurtuurka waxba kama dambeeyo. isna intaasoo kale noqon. waxaan dhicin nin hadduu guur maaga gabadhu kama celin kartee inayna isku dhibin. ninkana waxaan dhihi lahaa hadday arrintaas marnaba ha ogolaanin, mobilkaaga iyo facebookkaagaan baadhin, marnaba ha ogolaanin. waayo xaaskaaga hadhow saa kuusii wada joogi maysaan haddaa saa samayso. hadday xaajada gabadha kadaa ka weydana dagaalku waa kana ugu darane la guurso. waxaan laga baqayaba banaanka keen. wixii maxaa dhacan, wixii aan ka baqaya ka yaabay oo ku galay inbay noqon, ka yaabay oo ku galay inbay noqon. markaana muddo cirkaba la iskala soo degi oo tartiib baa la isla soo degi. marka ninka waxaan dhihi lahaa hana ogolaanin, gabadhana tartiib wax ugu sheeg. haddii halka ay dhaafi weydana la guurso. dagaalku markay xabaddu dhacdo bay cabsidu bagtagtaa baa la yidhi. markay wixii dhab noqdaan buutuhunka iyo baadhbaadhitaanka markaasu dhammaan. marar badan ban aadaabta telefoonada ka hadla, waxaan ihahdaa telefoonadiina bassword ha yeeshaan. basswordkiinana reerihiina iyo xaasaskiina iyo cid kala midna ha u sheegina. telefoonkiina on bassword ku xidhnayna meela miis iyo fagaare iyo dad dhexdooda kaga tegina. adiguna telefoon laga tegay haddaa rabta ha baadhbaadhanin. gabadhuna telefoonkeeda bassword ha u yeelato, nin iyo caruur midna yaan iska ogolaanin. isagoo bassword furan yahayna xataa miiska ninkeedu joogayna kaga tegin. waxaan dadku haddaan xuduud la yar kala asturaanin, ceeba xunxun baa la isugu tegi. intaasaan dhihi lahaa gunaanadka waxa laga yaaba gabdhuhu inay ka xumaadaan, laakiin haddii wixii iyadana ay jirato ay waalato oo ka cabsaday ay timaado, isagiina xataa hadduu hadda telefoon tuso
ma aaminayso inuu wax tirtirey bay u qaadan markuu ku ogolaanayo wixii uu ka tirtirey bay dhihi facebookan uu ku siiyeyna uu ka guuro kalaba mid kaloo leeyahay marka sheekada dhammaan mayso sheekada waxay ku dhammaan kartaa haddii si kale loo qancin waayo dee guurka badanna ilaahay baa fasaxay gabdhihiina way wada baahan yihiin oo guur bay u wada baahan yihiin waxaa la yidhi raggan labada nagood guursanaya sheekh Cumar Faaruq baa lagala dooday gabdhaha la doodayey wuxuu yihi khayr allah siiyad allah naxariistee nin xikmad badan buu hadalka heli wuxuu yihi hawaanow horta idinku haddaa isku raacdaan inaan laba la guursanin maba dhici karto maba dhacdeen idinka tan la qabo tan laba ku noqonaysa waa idinkii baa raba buu yihi meesha wax ka rabee idinku horta yaad matashaan ma midii hore la qabaad matashaan mise midda lamadaba la guursanaa matashaan marka waxani gabdhihii guur labaad bay u baahan yihiin mid walba ninkeeda keligeed inay noqoto way jeclaan lahayd laakiin ta labaad noqonaysa ama ta saddexaad noqonaysa ama ta afraad noqonaysa guur bay u baahan tahay waxna ma hayso baahidii baa jirta intay xumaan badan lahaa gabdhihin la kafaalo qaado la asturo saasuu sharcigu u jiraya dantuna saasay ku jirtaa wabillahi tawfiiq